Asalaamu calaykum isu soo noqosho wanaagsan oo mar kale casharkeenii aan ku baranay sida loo sameeyo website. Casharkeena wuxuu noqonayaa casharkiina afraad kaasoo aan ku baran doono maanta sida loo sameeyo qaybtii loola jiray courses ku soo harnay qaybteenii hore introduction-ka. Marka waxaa inoo haray hal cashar oo ah qaybtii u dambeysay oo footer-ka iyo kan maanta aan dhigan doono. Casharkeenan wuxuu inoogu bilaabmayaa in aan ku bilowno qaybteenii courses-ka tusaale ahaan maalintii waxaan ugu jirtaa halkaas casharkeena nooga xidhnaa hoos baad ugu degaysaa markaas. hoos markaa ugu degto halkan waxaad ka furanaysaa diffka markaad furato waxaad siinaysaa ka koowaad start tag id baad siinaysaa id-ga markaad siiso waxaana soo hadlaysaa courses id waxaan bixiyay courses kadib waad dhex galaysaa id-ga sidoo kale halkan kale waxaad kasii furanaysaa diffka kale aad ka furtaysna waxaad siinaysaa classka waxaad bixinaysaa heading ugu bixi kadib diffka isagana waa sii dhex galaysaa marka sii dhex galayso halkan waxaad ka furanaysaa h2 ga marka furto waxaana soo tusaale halkan waxaa ku qoranaya qoraal ciwaankayga oo ah our surface kawada kuma macnaba courses bade our coursedan bixino akay kali tusaale halkaas wuxuu iga xidhmaa halkaas iga xidhmaya kadib diffkan wuxuu iga xidhmaya halkaas kaasina wuxuu iga furmaya halkan soo maaha kana isaga waxa wada xukumaya wuxuu ka xidhmaya halkaas ka xidhmaya marka waxaad sameynaysaa adigu waxaad galaysaa kaa hoose halkaas sii dhex galaysaa oo kan isaga wax bayno inoo wada xukumaya marka diffka halkaa ka xidhan hoostiisa baad u degaysaa aad hoos uga tegaysaa sidoo kale halkaa markaad hoos uga degto waxaad furanaysaa diff kale isaguna la dhaho diffkaasaad furanaysaa diffka kale waxaad siinaysaa isagana classka markaad siiso waxaad u bixinaysaa courses minus container ayay classkii waxaan bixiyay courses container sidoo kale diffka aan doonayna isagana sii dhex galo oo wax sii dhex gato marka saa sii dhex gasho course containerka waxaad sameynaysaa isagana diff kala sameynaysaa maanta diffaf badan isu jiraan sameynaa diffka markaad furto course container waxaad u bixinaysaa diff class baad kana siinaysaa classkana waxaad bixinaysaa box classka markaad u bixiso box waad dhex galaysaa isagana markaad dhex gasho halka waxaad ka furan waxaad ka gelinaysaa sawir baan doonaya inaan kasoo geliyo sawirka waa qaybta hore tusaale ahaan courseska doonaya inaan bixiyo sawirka ugu horeeya doonayo oo ah markaa folderka wuxuu inagu jiraa folderka image-ku inagu dhex jiraa qoraanteeni gaar ahaan waxaan soo gelinaya qaybtii la odhan jiray html-ka sawir html aan doonaya inuu iisoo galo oo halkaa iisoo geli doono hadhow tale tusaale ahaan sawirkii image-ka doonaya halkaa waxaan ku bixinaa qaybta web development-gaan doonaya inaan qoro markaa tusaale markaa halkaad sirso tusaale hoos bay gelisaa tusaale baan furanaya h2 markaad furto tusaale waxaad ku qoraysaa web development markaa saa u qorto hoos baad uga degaysaa isagana waxaad furanaysaa paragraph waxaad odhanaysaa qaybtan waxaad ku baranaysaa sida samaynta website-ada qaybtan waxaad ku baranaysaa dhisida website-ada intaa markaad qorato sidoo kale waxaan doonayaa inaan kasii dhex furto spankii oo halkan uga sii degayaa tusaale halkan uga baxayaa haanase waxaan doonayaa inaan furto spankaygii marka halkaa ka furmo soo hormujiyo spankayga taggii start taggii end tagga markaan ka furto waxaan doonayaa inaan ku qoro gaar ahaan luqadaha lagu bixiyo websiteska lagu barta maxaa kamid ah html sidoo kale ss sidoo kale maxaad odhanaysaa and gs waayahay marka intaad sameyso hoos baad uga sii degaysaa sidoo kale waxaan doonaya inaan soo geliyo button
يروين قيبتن هذا تسوين دوين كفر بطن بطوكا markaad furto waxaan doonayaa batokaas inuu noqdo qaybtii laga soo doonayay sida tusaale batokan oo kale inaan ka sameeyo doonaya batoka markaad siiso isagana waxaad siinaysaa class classka markaad siiso waxaad u bixinaysaa batokan btn markaad u bixiso sidoo kale waxaad kusii dhex furaysaa linki baan doonayaa tusaale ahaan waxaan siiyey class isagana waxaan doonayaa inaan sii dhex geliyo linkigaana aan kusii dhex qorto qoraalkayga tusaale ahaan batoka marka waxaan ku qoranayaa more Seymour marka saas ugu dhex qorto waxaan doonayaa inaan dhex geliyo linki halkan aad tegaysaa maxaa noqonaysaa href marka tiraahdo tusaale waxaan doonayaa in qoraalkaygu uu dhex galo linkigan Seymourtaydii absolute meeday kan waxaa khaldanayso botokay markuu yahay marka hore horta bal linkiga fur waxaan bracket href kadib isoo bracketkii kadib linkiga dhexdiisa maxaad ku qoraysaa Seymour intaad ku qoraysaa Seymour markaad ku qorto waad deynaysaa isaga intaad ku deynaysaa macnaha kadib waxaa iisoo galay imika haddana halkan ka sugno qaybteennii sawirkii html-ka oo ah sawirka halkaa aan kasoo geliyey marka qaybtaas isaga saasaad kusoo gelisay oo waa qaybtii bahalkii html-ka waxay u xigaa inaan soo geliyo sawir kale oo ah qaybtii technicalka oo kale ah tusaale ahaan hadda intaba copy garaysto tusaale ahaan div class box intaas way noo soo noqonaysaa mar walba inta haddaad copy garaysto tusaale ahaan control c tirado haddana halkan oo soo halkaas sii geliso tusaale ahaan deetana aad bedesho halkan ku qoran tahay sawirka magaciisa bedesho iyo qoraalka paragraph halkan maxaad ka dhigaysaa tusaale ahaan technical oo uu ka sawirka ugu socday sawiradan waa soo diri doonaa technical markaad ka dhigto halkan isagu web development ma ahayno dee technical buu ahaa technical engineer baad ka dhigaysaa halkan isaga waxaan technical engineering technical engineer baas isagana waxaan rajeynayaa inuu soo galay sawirkii kale oo kaas soo galay isaguna qaybta CSS-kan ku habeyn doonaa bottonkiina waa kan waxaad ku baran kartaa qaybihi HTML waxa weynaa soo galeen iyagaan ku kala habeyn doonaa waxooda dhan aan ku kala farsameynaa halkan waxaan doonayaa inaad qaybtan waxaad ku baranaysaa furfurka iyo xirxirka computerska maxaad oranaysaa qaybtan waxaad ku baranaysaa intan iga masax furka iyo xirxirka computerska waayay isagana waa soo galaan rajeynayaa oo kaa waxaan bottonkiini buuxini noo soo galay gaar ahaan halka waxay noo socodsan isaga HTML CSS laguma barto isaga technicalka isagana waad ka bedelaysaa maxaad ka dhigaysaa halkaas tusaale ahaan kan hore waxaad ka dhigaysaa hardware oo kale hardware iyo OS and troubleshoot waayay naadhugna capital ka dhig waayay waynoo qaadanaya isaguna hardware OS iyo troubleshooting intiiba waynoo qaatay sidoo kale marka intaad samayso intii hore weli copy kastaa macnaha intaan copy garaystay intaas ahayd marka hore intii hore weli copy kastaa maxaa igu xishinayaa qaybtii kale tusaale ahaan graphic design kale inaan soo gelin doonaya isagana iyo capacity gare intaan dib waqtigan macnaha waqtigan doonaya soo yareeyo
halkan waxaad ka dhigaysaa isagana sawirka bedel formaatkiisa iyo ismid masax isku meel folder bay yeelaan marka sabtaan folder waxa la dhahaa Photoshop wii soo qabanaya photoshop.png isna waa ii soo galay qaybtan waxaad ku baranaysaa ka dhigayaa samaynta iyo hagaajinta designs-ka samaynta iyo hagaajinta designs-ka waayahay isagana marka inta taraado xagga kale spanki baan sii raaciyo aan doonayna ka bedelno tusaale ahaan hal baan doonayna ku qorno tusaale ahaan kan doonayna dhaho Photoshop iyo Illustrator Photoshop iyo Illustrator Photoshop iyo Illustrator waayahay isagana wuu ii soo galay Photoshop iyo Illustrator spanka dhexdiisa marka inta ay ku qoran tahay Photoshop Illustrator waayahay button-kana sidiisa ayuu u ahaan doonaa oo button-ku waa iska wada mid maxay igu xiga qayb kale oo network-na soo karsan doonaya soo ahaan korsano inay ilaa 6 kors ka dhigan doonaya igu baasti galay intii wali wasta masax soo ahaan sawirka kale igu jiro waxa la dhahaa local area network sidoo kale waxaad oranaysaa qaybtan waxaad ku baranaysaa isku xidhka kombiyuutarada si ay isugu gudbaan qaybtan waxaad ku baranaysaa isku xidhka dhammaan kombiyuutarka ayay isagana intaasaan kaga gudbayaa sidoo kale waxaan doonayaa inaan sii raaciyo spank isagu inaan u samayn rajaynayaa spank waan ka daynaya isagu maadaama suuq luuqada iyo wax saa lagu badan looga shaqey lahayn spank kama saxsan intaasaan ku taa qoraalkiisa ku taa isaguna inuu ii soo galaan rajaynayaa waxaa uu soo galay qaybihii network kombiyuutarada la isku xidhayay waayahay waxay sii raacaa qaybtii kale coding sidoo kale iyadana halkan igu baasti kare intii laga masax sawirka waxaan ka dhigayaa coding.png haye halkan waxaan doonayaa maxaa lagu baranayaa tusaale ahaan halkan waxaan soo ilaa word development mid walba web development laguma baranayo laakiin waxaad ka dhigaysaa network sidoo kale kan kalena web development laguma baranayo oo waa Photoshop isagana waxaan odhanayaa graphic design graphic designer sidoo kale kii kale technical-kan isagana soo bedelaya maxaan ka dhigayaa technical engineering isaguna wuu yahay waayahay waxaa marayay qaybtii kale coding-ka marayay markaan kusoo noqdo qaybtii coding halkan waxaad ka dhigaysaa isaga program ii soo galay sawirkiisii aan eego san sawirkiisii ii soo galay maxaa igu xiga qaybtii u dambeysay sawirka courseska ee u dambeeyey isagana kusoo geliyo oo ah databaseskana ka dhigo halkan sawirka iga masax waxaad ka dhigaysaa isagana database sawirka mid walba wuu soo qonay viewska iyo update sidoo kale halkan waxaad ka dhigaysaa isagana database halka marka tiraahdo sidoo kale qaybtan waxaad ku baranaysaa intaa baad bedelaysaa qaybtan waxaad ku baranaysaa sida
masax waxaad ku baranaysaa sida loo maamulo databaseska. sidoo kale qaybtan kale codingkana isna waxaad ka dhigaysaa sida loo barto luqadaha programming. marka qaybtii HTML-ku intaas inoogu eegay casharku maanta wuu yara dheeraaday, marka waxaan doonayaa inaan qayb kale oo kasoo sameeyo part 2 ah oo ah qaybtii CSS-ka. marka isagu wuxuu inoo maraya halkaas inoo maraya tusaale ahaan sawiradeedii waxaygii ma qurux badnaa, halkan HTML-kaygii waxay ma qurux, marka waxaan doonayaa bahalkan inaan nidaamino oo u sameyno background u sameyno ahaan marka xitaa farta saa loo taabto inuu iisoo boodboodo kan doonayo inaan uu ii sameeyo waxoo dhan markaan u sameynaa part 2-ga CSS-ka ayaan ku dhamayn doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.